بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وولاش النمعية مرلبات أدبان سلامية ما يكسر سكنتين خير عافما إله إذنكي يرى لها شاء الله سبحانه وتعالى وحن لقى بسنة هذا لي يرون وناكسن وآديات متقناي قلبك مضحوة وناكسن توقفك فهمه وكل رقمه اسكو ضيو نبل اسكو ضيو وحلقة هذا لي وفهمه wuxuu ku yidhi duruufahaaga kuu gaarkii adiga iskale keligaa edabta hadal kula hadlaysaa dadka hadalka edabta leh ee dadka kula hadlaysaana waa xaqi dadku ku leeyihiin dadkoo dhan ee saa darteed isku dhex khaldin mashaakilka adiga kuu gaarka duruufaha kuu gaarka ah iyo dad kale dhaqankooda isku dhex khaldin dad badan baa arkaysaa hadduu dhibaato meel ka haysato ama mataqaana kurbad meel ka haysato ama walwal meel ka furanaya dadkoo mataqaana hiifayo qaylinayo calacalayo yuusayo mataqaana hadduu doono dadka caytamayo aflagaadeynayo wala waan dhibanahay waxaasoo dhan aday kuu gaar tahay dadku adag inaad edab kula dhaqantid mataqaanaaye umuuraas ku qasin ayuu ereygan kuugu yabuubinayo kuugu yeedhaya ereygii labaad wuxuu ku leeyahay dadka ha u sheegina wax kastoo wanaagsan ood hantideen sababtuna waxaa laga yaaba dadku inay intooda badan inay haysanin niyad wanaagsan mataqaana ay kugu haneeyaan waxaad haysatid hantiday bilcaks waxaa laga yaabaa intooda badan inay le haystaan xaasidnimo iyo hinaas uu ku jiro ina kuu quudhaynin waxa aad sheeganaysa sheegasid kaad wax kasta sheegtid daruuri maaha dadka qaar laakiin waxay ka dhigteen faan waxaan haystay waxaan ay soo kordhay sidana sameysana yeelay halootan waxa ku dhacda dhibaato kale ka timaada ereyga kale wuxuu ku leeyahay marmar badan waxaan dhacda inaynu qosolno qosashid baa dhacda adoo ama aniga oo humuumtu ama walwalku qofkaasi mataqaanaaye meel kasta ka hareeraysan yahay mataqaana hami badan aad meel badan kaga mataqaana furan yahay maaha macnuhu buu yidhi inaynu nahay dad bilaa dareema oonan mataqaana hamiga qamigaas ina dhibayn maaha macnuhu taasi laakiin waxay macnuhu tahay inaynu hantinay naf aamintay ama rumaysan inuu bacda alcusri yusra yahay si ilaahay nagu ballan qaaday dhib kastaba waxa ka dambeeya fudayd iyo yusr ka dambeeya taas darteed baa loo qoslaya oo la iska tuuray wixii mataqaan warwa ku fulay ereyga kale wuxuu ku leeyahay hadalka dadku wuxuu la mid yahay hadallada dadka qaarkood waxa la mid tahay sidii dhagaxyaan haddii aad dhabarka ku qaadid dhabarkay ku jebinaysa waa hadalladii dadka hadallo dad baa hadallo aad iyo aad u qallafo aad iyo aad u adag oo dhabar jabis leh sida dhagaxoo kale dad baa hadalkoodu saayay haddaad hadalkaa markaad ku qaadid dhabarkaaga ku jebinaysa laakiin haddii hadalkaasi aad ka dhigatid bridge ama maxaan ku rahdayay waxaad ku socotid oo uga hago hoostooda dhigatid kor baad u kiciyo waad guulaysan taas waxay ku dhiirigelinaysaa in mar kastaba hadalka dadkayna kusoo noqnoqonin oo qofkii hadalka xumaan wada xumaanta isagaa yidhi isaga ku qalidantay adigu dhaafoo ka gudub oo hadalkaasi dhiiraa ku geliyo wanaag samaysin mooyaane niyad jab iyo calool xumo iyo murugo iyo dhabar jabka la sheegayo iyo kugu keenba ereygaasi ina faraya ereyga labaad wuxuu ku leeyahay ama ereyga kale wuxuu ku leeyahay badda dhanaankeedu kuma saamaysato ama saameyn kuma yeelato roobka badan ee ku da'aya si kastoo roobka ugu da'o baddu tii dhanaan weeyaan biyaha macaan cirka soo da'aya inuu cabnaa badda waxba kama bedelo daas macnaheedu waxa weyn saameyn kuma laha saa darteed adiguna hadalku dadku ku leeyihiin iyo saameyn kugu yeelanin xumaata ah dhanka xumaanta ah iyo ku noqonino cidnaba akarihin cidnaba anacin hadallada ku yiri darteed iyo saameyn iyo ku yeelanino anacino qofkii ku dhibayba ee dhib kuu geystayba cashar buu ku siiyey وسن حدها بكو قادو كو ديبا عشر كفائدة نعمتي كاسون is ogeyn إلا ما كو ديبا موس لهين دبتاسي واد كفائدة سايو يا أذي خير كو نقول ساي دنك في عمد كيغا ساي إنو كو ديبا وكو حمايو أيو كودي مكا لكن أذيك واكا معاشيو دنك لو قاتي inta danka gudbo waanooyin kale maya waxa yiri waxa ku jirta erey dadkii cibaada ilaa mataqaana ilaahay caabudayay si wanaagsan u caabudayay baa la weydiiyay ma waxa lagu yiri maxaa lagu yiraahdaa maxaan ku raahdaa muxuu macnihiisu yahay as-sabr al-jamiil sabrka wanaagsan sabrka qurxoon ama sabrka jamiilki waa sabrka maxaa laga wadaa wuxuu yiri hada sabr jamiil waxa weeyaan an tubtala وقلبك يقول الحمد لله إن لقوا ابتلايو وابتلاءات كسوغان تهي تاسو قلبك أقول ليه
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال وفي وقت حين بين لانهاي انت نوحي وانوين dadka ma taqaanaayay loo waaniyay bukul khaasatan dadka gaadhay da'doodu 30 40 50 iyo wixii ka sareysa waanadaas waxay tahay buu ku yiri waxaad la ogaataa toobista sanad kasta mar at least ugu yaraantii sanadka mar stop xitaa haddii aan dareensanay wax xanuuna ama wax mataqaana cilada aan haysanin dardaaranka labaadna ama waanada labaadna biyo badan cab xataa haddaanan oon ku haynin ama aanad u baahnayn sababtuna waxa weeyaan mushkiladaha u badan ama dhibaatooyinka u badan caafimaadkii intooda waxay ka timaadaa biyo la-aanta jirka ku sugan jimicsi samee xitaa haddaad mashquul tahay si xoog aad u mashquulansan tahay waayo jimicsiga jirka dhaqdhaqaajisa xataa socodna ahaatee faa'iida kugu sugan cuntada badan iyo mataqaanaayay cuntada aad kala cunaya iska yaree dhib mooyaane faa'iido kuma jirto naftaada adoon xarimaynin wax soo diidaynin laakiin in yaro macquul aqal gala oo iska badan cuntada badan dhaaf jooji istiqdaam dadka gawaarida ka haystaan ay ku saabsan tahay gawaari ka hayska badan yar joojiyo marmar muraadada meelaha u socotid bal isku day in ku tagtid waanadii kale waxa weeyaan naftaadu murugo iyo ka daba tagin ama ka daba dhimanin qof ama wax aad weyday aad ogtahay inaad soo ceshan kareynin waxaad weydid waxa laga dhigaa waxaad u baahnayn xitaa hadduu qofkaas yahay qof mataqaana adiga mataqaana iska natirayo iska diigsanayba aad wax iskarataan u baahnayn ba naftaada murugo iyo muxuusan igu sameeyey maxaysan igu dhacday iyo naftaada ku din xasaraad iyo muruga leeyahay inaad timahaaga cadaaday aad kala dhaysid oo kala u yeeshido marba midab u badbadashid macnuhu maaha caalamka nihaayada cumriga baad joogtaa gabagabii baad joogtaayo timay baa ku cadaaday ma waxay u cadayn tahay taasi buu ku yiri inay noloshii ugu wanaagsaneyd ay imka bilaabatay adigoo rajo qaba ididiila wanaagsan leh yaa noolowo dhoofo naftaada mataqaan wixii xalaashayd ilaahay ku baneeyay ku raaxayso dardaarankii kale waxa weeyaan salaada marnaba ka tagin abadan waxa weeyaan warqadaada ku guuleysanaysay raaxada adduunyo aakhiraba aad ku mutaysanaysay khaasatan maalin aanay anfacaynin qofnaba anfacaynin xoolo iyo awlaad ilaa qof alla la yimaado mooy qalbi saliima mooyaan qulubta saliimkana waxaa lagu doonaya qalbigii aan xasad lahayn in xiqdi lahayn in nicbaasho lahayn ee cadaawo lahayn ee daradaraar lahayn ee maxaan ku lahdaayay shirk lahayn qalbi saliima siduu nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay rabbiga subxaana watacaala uu weydiistay uu yidhi allahuma laa tukhzini yowma yabcathuun alla way hoojinin maalinta dadka lasoo yaboohiyo yowma laa yanfacu maalin walaa banuun maantayna anfacaynin cidnaba ama qofnaba awlaad iyo xoolotoona ilaa man ata allah ilaa kii la yimid alla la yimaaday markuu alla la kulmay la kulanka alla la yimid qalbin saliim qalbi saliima ilaahay qulub saliima inagu arsaaqo meel kastoo joogno qulubteena saliim ka dhigo qalbi ilaahay jacaylkiisa iyo mataqaana xusuustiisa iyo qiimaysta alla subxaana watacaala ku sugan ilaahayna siiyo inagu arsaaqo ilaahayna wixii laga baryo waa laga helaa allahuma as'alka salaamata fi sadr baa layidhaa ilaahay qalbi saliima allahuma ashrax li sadri wayassir li amri baa ilaahay la baryaa subxaana watacaala markasta ilahay wixii laga baryana waa laga helaa adduunka keligiisa wuxuu iska yahayba gabagabu iska yahay marka in si mashquuliyo oo qalbiga caqliga la iska sii dilo ayadaaban istaahilinba waxa laga gudbay laga talaabayana wax waagu barid ka baryayana waa wax mataqaanayay aad u dhoweeyaan qofku hadduu aaminsan yahay inuu mataqaanaa dhib kastuu ku jiro ama mataqaanayay wax kastoo soo maraya inay gabagaba leedahay nihayad leh oo weligeed waaraynin waxna saa kuma waaro wax kastoo wixii dhammaado weeyaan sida buu ku yiri qofku uu ogyahay oo aaminsan yahay qofka soomani ma ku samarsanayo soonka gaajada iyo oonka uu adkeysanayo wuxuu hubaa uu yaqiin hubaa inuu maqrib ku gali doono la adimi doono maqribo oo afurka u tabin doono qof kastana uu aaminay rumaysanay ilaahay iimaan iyo qadar aaminsanay iyo qiyaamahana wuxuu ogyahay inuu wax kasto ku sugan yahay ay gabagaba leedahay oo ilaa kii ta dhamaata ee wuxuu ilaahay ugu tala galay la maro ayuu sugay qofkaas marka maadaama ilaahay aaminsan yahayna wax nafta diinta islaamkeena way barasa ay ababinasa inuu ilaahay yaqiinsanaado oo markasta ilaahay u taagan yahay wuxuu ilaahay faro inuu yiraahdo samicna wa atacna waanu adeecna ilaahay subxaanahu wa tacaala وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عشرة دي ونقول لقي قصص كي iyo mataqaanaayay cibaar ku qaadashadii faraha badnayd
saxaabadii iyo mataqaanaaye waqtigii nebiga iyo wixii ka dambeysaba lana soo gaarsiiyey inay dadku ka faa'iidaystaan ku cibaaro qaataan ay noloshiina barasa dadka ereyadan qorqoraya aynu maanta u bogonayn dhegeysanna akhrisanana waa hada dad inala mid ah waqtigan waxaa ayaguba nool qaarkood inta badan ama dadkii hore kasoo tabiyey waxaas lanagu soo tabinayaana waa waxaan ka faa'iidaysana weeyaan oo nusan adduunkani aynan isku dayicin dhaldhalalaaka adduunku ama dhibtiisu aynan ilowsiinin aakhiro iyo meeshan haybsanano in aakhiro ilaahay ka rajaynano meel sare oo wanaagsan oo jannatun carduha samaawaat wal-ard ilaahay ugu ballan qaaday dadka mataqaanaa ilaahay rumeeyey ee camalka saalixa la yimid inaynu adduunkana inu aragno ilaahay jaanisuna siiye inay noolaano oon ilaahay ugu dhowaano camal kasta iyo qowl kasta iyo ficil kastoo wanaagsan oo ilaahay camalkeena maqbuul ilaahay ka dhigo inaan ka rajayno waxaasoo dhan waxay kaaga dhigaysaa dhib kastoo kusoo maray in waxdeeda fudud oo sahlan ay tahay waayo mugdi kasta habeen kastaba waa beriye iftiin iyo waxaan ku rahdaaye waa beriyey oo dilaacmay oo iftiinkiis la yimid ayaa soo socda dhib kastoo ku jirtaa qof yahow wanaag baa ka dambeeya farxad baa ka dambaysa haddaad samirteed wabashir cibaadayla saabiriin bilaahi subxaana watacaala waa sabirkaa lagaga baahniya adkaysada baa loo baahniya qofka xanuunsanaya qofkii mataqaanaa cilmi raadinaya qof kastoo dhibaato meel ka furantay arqasaaqada haday tahay wax kasta haday tahay haddaabad rajaynaysa ilaahay kaa furi doono abaal khayr ku aftaxayo ilaahay ka cabso markaaga hore waman yattaqi illaaha yarzuqu min xaysu laa yaxtasib meeluuna ka filaynin ayuu ku arsaaqayaa ilaah subxaana watacala waxaan baryaynaa inuu waafajiyo jidka toosan ee dariiqa mustaqiimka hadallada wan wanaagsan in dhegaysanana ama in maqlanaa qaar nafteena saameyn ku yeela oo hadalka wanaagsan dhanka wanaagsan ka eegano oo inaguna ku dayano oo nafteena mataqaana ku tarbiyadayno oo nafteena aan barno inay noloshu qurux badan tahay haddaynu muraad qurux badan u gashano ama aragtideena qurux badan ku aragno laakiin haddaynu xumaanta ka eegno oon qodxo iyo mataqaanaaye nolol raf oon istusno waxaa aad rajaynaysa baad helaysaa uun laakiin hadda ilaahay ka fashid mala wanaagsan malaha ilaahay ka fasho amaad heshaa subxaana allah markaa ma xusna dan iyo ididiilada wanaagsan iyo mataqaana rajada fiican adigunbaa ku farxayo ku noolaanaya nolol wanaagsan mooyaane dhib kuuma keenayso laakiin haddaad muraad madu xidhatid ood hoog iyo ba iyo musibo u yeedhatid iyo wax kastoo ku dhacabaad sharaysatid adigunbaa naftaada cumro dadejini waxna ka bedeli maysid gafna waad urursatay carada ilaahna waad soo haybsatay markaa waxay kaaga kugu faa'iidaa wax faa'iida ma leh laakiin haddaad sida dhankale ka egtid oo wax kastaba khayr ka aragtid ood khayrka u malaysid oo malaha wanaagsan u jeedisid oo dad wanaagsan oo ku waaniye aad qabsatid oo jidka fiican aad aragtid iyo wax kasta wax kunoon soo xiira fudud oo sahlan oo yasiira oo sakiin ila qalbiga ku dejinaya wabillahi tawfiiq waxaan khalday waa nafteeda shaydaan waxaan saxay ilaahay tawfiiqiisa ilaahayna waafajiyo meegsan joogno khayr adduunya khayr akhira nu rajaynaya ilaahay idankii ilaahayna barakeynana garaabo noqdo ilaahay intii dhimatay lahu naxariisto waalidii ahliyadii muslimiin oo dhan inta noola cumri dhan camal saalix cibaado suuban masaa'ibka adduunka mara ilaahayna wada baal mariyo khayr baan ilaahay ka rajaynaya caafimaad أنا كيلوبنا إن شاء الله تعالى مشاركة سبسكرايب كسارة إن شاء الله شير إيا لايك إن شاء الله كومنت كسو قرى داليلا وحيد كفايديستين داد كانوا سيقود بيا لعل إنه قفلاي كفايدي ومتقانايي وقلب قيسة في الحد قليا رعكر تأرير وكفرحو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.